السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان صارت ميل كست الدنيا كجيتي وحنا داون إنسان يوتيوب كتيم بدو بوس في شل كسر هذا مقال كمان تحو كسب سنة هاي ورك عيارها أمانتا ميز كإنه صارن ورك عيارة تيم بدو بوس هديك كونفرج بيتا نغلو صوتان بيتك وحال إذن كروا إن ياسيسان 10k دك عيارة أتطايرة وحال إذن كرمنا إن 10k فلورس تدخسي بدن نوجي سيسان إن شاء الله أساس رجينا ورك يارا ما أنت محا كسو كردي ورك يارا ما أنت محا ميسك إنو ساران محا فلانقين أنت ساكو بحين دونا مركا ورك يارها ورك ما ديو سميني أو كوفش الميقاب كي وليس سوارس وهو أديك سدي إنو ليونيل ميسي كوكان إيو باريستا أتلاتيكو مدريد Diogo Simeone ayaa daaha ka qaaday inuu qorshe cajiib ah u garab sameeyo Luis Suarez agaagii la soo dhaafay si uu isugu dayo inuu u dhaqaaqo Lionel Messi agaagii la soo dhaafay wadahadalladii heshiiska kordhinta Lionel Messi ee Barcelona ayaa ku burburay kadib markii ay kooxdu awood u wadatay mushaarka Lionel Messi xilli uu xidigu qaab xor ah ugu tagayo kooxda tababarka Atletico Madrid ee Simeone ayaa qirtay in isku dayay inuu Luis Suarez u sheego inuu ku kaniyo saaxiibkiisa hore inuu kula biiro kooxda caasimada waxa aan ku sheegi doonaa wixii dhacay waxa aan hadlay Luis Simeone yidhi ixtiraam inaan u hayo lama hadlaan Messi احترامنا وهايو لما هدلين ميسي لكن وها عن لويس وشجعي إنه ميسي كان يو إنه يمادو أتلتيكو أيو ساس إسكراعي ولي وحن كقول جرنا وركي يارها إيمانتا ليفربول أو أرسنال وشجعي إنه حل وضع كهلي كران صحيحة حدقة ألكسندر جامبرلين كهذا ليفربول أياسو ورمايا إنه ديار وطاي حدقة ألكسندر جامبرلين oo ogaato inuu dib u laabto Arsenal laakiin Reds ayaa dalbanaysa lacag 35 milyan oo lacagtii ay ku bixinaysa xidiga Gunners ayaa doonaysa inay dib ula saaxiibto xidiga Alex Oxlade-Chamberlain kaas oo baxay qorshaha tababare Klopp bilihii ugu dambeeyay Alex Oxlade-Chamberlain ayaa 7 sano ku qaatay Arsenal hor intuu uuna 35 milyan ugu biirin Liverpool sanadkii 2017 Michael Arteta ayaana doonaya xidiga in uu dib uga midoobo Emirates wargeysyada The Sun ayaa sheegaya inay Liverpool xidiga Alex Oxlade-Chamberlain ka hor istaag doontiin in uu ku biiro kuna laabto Arsenal laakiin waa inay marka hore hesho lacagtii ay ka soo bixinaysay saxiixa xidiga Alex Oxlade-Chamberlain ayaa dhankiisa la sheegaya in uu furan yahay inuu asiga tago kooxda Liverpool kuna laabto kooxdiisii hore Arsenal suuqa January ama xagaaga wali waxaan ku guji jirnaa wararkii ciyaaraha Man City oo ay qaadatay wadadii ugu dhaqaaqi lahayd saxiixa xidiga Erling Haaland Manchester City ayaa dardargelin doonta badi goobka Erling Haaland iyadoo kooxda ay wadahadalo la yeelan doonto wakiilayaasha milkiilayaasha bisha January-ga uu dhaqaaqi doono Premier League xagaaga dambe sida la soo xigtay The Times Haaland ayaa hadda magaca ugu sareeya liiska bartilmaameedka City waxaana Pep Guardiola uu raadinayaa number 9 cusub ka bixitaanka Sergio Aguero xagaagii hore 21 jirkan Haaland ayaa rikoor guula cajiib ah kula helay kooxda Dortmund isagoo dhaliyay 68 gool 67 kulan u saftay tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Bundesliga Red Bull sanadkii 2020 laakiin arinta Man City iyo kooxaha kale oo ku soo jiidanaya u dhaqaaqista Haaland ayaa xagaaga heshiiska lagu burburin karo kaliya lacag
dhan 68 milyan oo euro. Laakiin arinta Man City iyo kooxda kale kusoo ku jiidanaya u dhaqaaqista Haaland ayaa ah hagaaga heshiiska lagu burburin karo kaliya lacag dhan 68 milyan oo euro. Haaland ayaa xiiso geliyay koox badan oo reer Yurub ah bilihii ugu dambeeyay keena mid ahayn kooxaha Man United, Chelsea, Barcelona, Liverpool iyo Real Madrid iyo kooxo kale oo badan. weli waxaan ku jirnaa guys wararkii yaaraa meesha naga daawanaysiin waa Team Baydhabo Boys Official iyo page-ka aan ku leenahay Facebook-ga Hidaha Koonfur Galbeed. saaxiibayaal meesha naga daawanaysiin waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii waxaana ku soo gabagabeyn doonaa cinwaanka ugu dambeeya oo ugu xiisaha badan wararkii yaaraa ee maanta oo ay tahay cinwaankii ugu saameynta badan waxaana uu yahay cinwaanka ugu dambeeya ee barnaamijka aan ku soo gabagabeyn doono. Okay, Sadio Mane oo ka xanaaqsan maamulka Ballon d'Or-ka iyo xidig Chelsea u ciyaara oo sababtuna u ah. Okay, weeraryahanka kooxda Liverpool ee Sadio Mane ayaa u xanaaqsan majaajalada Faransi football iyo dadka soo doortay xidiga uu tartami doono abaalmarinta Ballon d'Or-ka sabab la xiriira laga reebay goolyaha kooxda Chelsea ee Idris Mendy ayaa door weyn ka qaatay qayb ciyaareedkii Chelsea kadib markii uu ku soo biiray kooxda hal sano ka hor isaga oo soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah oo la soo bandhigay. Goolahii reer Senegal ayaa muhiim ku ahaa inuu guuleystay Chelsea Champions League waxaana uu ku guuleystay goolahii ugu fiicnaa Yurub bishii August. Si kasta ha ahaatee Idris Mendy ayaa laga reebay liiska xidiga u tartami doona abaalmarinta xidiga ugu fiican ee adduunka Ballon d'Or-ka. Mane oo arintaas ka hadlaya ayaa yidhi wax aan la aqbali karin, ma fahmin, waa wax laga xumaado. Si kastay ahaataba maanta wararkii ciyaaraha maanta halkan idinka soo gudbinaynay ayaa halkan noogu eeg. waaba ogahay inaan si naxariis dara ku soo galay wararkii ciyaaraha waana isoo jafi doontiine waxaan idinka rabaa inaad ii tartiibisaan si tartiib la ii soo jafa. waxaan arkay Maxamed Qadar iyo Shaafino ay aad ugu yaryihiin dadka ku soo faalooda wararka ciyaaraha. walaalcadkayna dib ugu soo bilaabay inuu ciyaaraha idinku madaaliyo. xilligan Soomaalida waxa u badan inay daawadaan wararka ciyaaraha. aad u mahadsantihiin.